marka ugu horeysa waxa mahad ilaahay waxaan kala u mahadnaqayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan munaasabadan aan ugu talagalnay gudoomiyaha xisbiga mudane xirsi xaaji cali iyo hogaamiye xigeenada iyo dhammaan xubnaha xisbiga wadani waa xaflad wadani markeeda hore waan soo dhaweynaynaa talabaad iyadoo ay kulli waqtigu iska yahay mahadnaqa dabadii waynu ognahay oo waxa jira xaalad adag oo xagga abaaraha oo ina soo food saaraysay oo roobkii dayrta aan la helin insha Allah waa la heli doonaa kulli mara waqti ma hadhine waxa bilaabantay biyadaan waxa nasiib darro ah muddo dhan inaynaan wali ka gaashaamaanin xagga biyaha oo sanad walba ay dhacdo biyadaan iyo abaaro haday magaranaysaa tahay dhaam la qodo ama riigaga la qodo oo aad arkayso marka ay waqtigan oo kale ay gaadho oo lagu oranayo waxa ka maqan deynabo iyo cilado yar buu fadhiyaa xagga xukuumadana dhibaatadu waxay tahay ka hortagii abaaraha oo aan maxay haytay aan la sameeynin laakiin goor ay xeeriye fandhaal kala dhaceen laga yaabo inay xukuumaddu anbabarto ilaahay abaaraha inaga soo qaboojiyo waxaan ku dari lahaa hadalkayga xagga siyaasadda markaad aan ka hadalno waxaad moodaa xilliyadan dambe in doorkii siyaasiyiinta ay la wareegeen madax dhaqameedku kulli cid waliba waxay leedahay xil gaar ah oo ay u xil saaran tahay inkastoo oo ay nabadgelyada alxamdulillah shukriino adag tahay haddana waxaad moodaa marka la isugu yimaado madal haday noqoto mid ina lagu bixinayo haday noqoto mid maxay ahayd caaqal lagu caleema saarayo haday noqoto mid sudaan lagu caleema saarayo waxa goor walba ku gorgortama uqaasha iyo salaadiinta halkii lagu oran jiray inanta heblaayahana la siiyo waxa imika la yiraahdaa codka idin siinayno iyo waan idin siinay waxaan aaminsanahay in lagu soo celiyo waxyaabahana waxay ugu bilaabeen runtii xisbiga kulmiye waxaynu ognahay xukuumadii SNM ee dalka Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynaha ahaa waxa lagu doortay hab dimuqraadiya beel iyo qabiil toona lagu dooran madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal sidaas leeg bay ahayd riyaalana waynu ogeyn oo qabiil cidina isku ma dooran jirin nasiib darro xilligan kulmiye bilaabay waxay noqotay in dadkii la iska hor keeno oo qabyaalad lagu tartamo oo ay noqoto inaynu dib ugu noqono yaani waqtiga aan leeyahay Cabdiraxmaan Cabel waa doortay may jirin qabyaaladan iyo imaka reer hebel baan nahay iyo reer hebelana lagu doorto waxaan jecelahay inay noqoto siyaasadeenu oo aynu dib uga soo noqono dhiiqadan lagu hadal galay ee qabyaalada anagoo reer hebela ee ay noqoto in codka lagu kala helo oo aan rajaynayo insha Allah wadan inuu bilaabo sidii xildhibaan Barkhad Batuun iyo Cabdikariin Axmed Mooge lagu doortay oo kale ee ahayd wada jir ay dadku kala qaybsanaanta iyo qabyaalada aynu ka soo noqono taas waxaan leeyahay xagga siyaasadda markay tahay aan jecelahay inaanu xisbiga wadanina aan waxba ku doonin qabyaalad laakiin aynu ku doono mabda'eena iyo maxay ahayd insha Allah nidaamka hadii aynu ku guuleysano xukuumadda lagu wada lahaa dalka in laga gaashaanto laba arrimood baa hadii goor abaaru leeyahay waxa kamida biyo la'aan iyo baad la'aan waqtiga roobka waxaanu ognahay inay biyo badan inaga qulqulaan inaynu u samaysano ama dhaamo ha noqdaan ama waxyaabo kale oo lagu cishado biyaha ha noqdaan oo marka jiilaalka ay abaartu ina hesho aynaan biyo dhaan iyo samaynin maxay ahayd dadkuna ay u soo guuraan inta badan waxay u soo guuraan waa biyo dhaan iyo biyo la'aan bay u soo guuraan waxaan jeclaan lahaa maalintii dhawada madaxweynuhu furayay madaarka Berbera arinteenu waxay tahay qoriisu dhiib madaxweynuhu ka horeeya
waxaan jeclaan lahaa inuu madaxweynuhu ugu magac daro garoonka berbera cabdiraxmaan axmed cali may dhicin haddii kale riyaalaba loogu magac daro waayo waxaynu ognahay xukuumadaheenii hagaagsanaaye ay udub ugu dambaysay garoonkan hargeysa waxaa loogu magac daray maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye sababtoo ah waxa weeyaan marka adigu aad joogto haddii aad u mahadnaqi weydo kuwa kaa horeeya adigana cidi kuu mahadnaqmayso berri markaad ka tagta meesha waxaanay ku fiican tahay in la isku ixtiraamo oo la isu haneeyo had iyo goor qof waliba wixii uu sameeyay anigu shakhsiyan markaan ka hadlo dad badan baa hadalkayga si kale u qoonsada marka xukuumaddu wax wanaagsan samayso waan ku ammaanaa xisbigeenu haddii wax kale ama wax qaloocan uu sameeyna waan tilmaamaa laakiin ma aha mucaaradnimo iyo maxay ahayd muxaafidnimo toona adduunyadana waa nidaam ka jira oo ah si adigana ha dhowto guushaada aan loo dafirin aduguna guulaha kale aan u dafirin waxaan ilaahay ka rajaynayaa kollay doorashooyin baa soo dhow haddaanay si kale wax noqonin in ilaahay nagu guuleeyo aynu ku doono dadkoo wada jira iyo dalkoo wada jira oo aynaan ku doonin sidii berigii dhaweyto noqotay in qabiil wax lagu raadiyo 5 kilomitir oo kale loogu daray marka intaasaan waqti beersan waxaan u arkaa inuu yahay imaanu qoladii u faarahayo waxa socoto ufadii guusha wadani leedeedii baan haysaa marka taana oo rajeynaya ilaahay inuu nooga dhameeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan baxay ilaa ceergaabo oo ood weyne iyo tog dheer intaba maray arinta xaflada lamida oo qiimo badan oo runtii aad loo rajeynayo oo soo dhaweyn fiicanna ay u diyaar tahay ayaan ilaa ceergaabo kala kulannay gudoomiyaha cusub iyo hoggaanka cusub ee gudoomiye ku-xigeenada la doortayba taa fariintaa way soo fareen gobolladii aan ka nimi mid labaadna waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha haddaan nahay qolada ceedagale habar yoonis wayna dhegaysataa waxaan balyaalkan uga dirayaa habar yoonis ilaa ood weyne ilaa ceergaabo waxa leey wixii aan la tagnay way naga aqbaleen si fiicanna way u soo dhaweeyeen arrinta aan meeshaa u tagnay hambalyo iyo bogaadina waan uga diraynaa waxaan balyo labaa u dirayaa dowladdii siiraayo ee hormoodka ka ah maxamed maxamuud axmed siiraayo waddadii ceergaabo ilaa burca u dhaxaysay 6 saacadood baan u soconnay oo hormoodka ka ah xirsi xaaji cali oo aad loo xusayaan reer ceergaabo awal loo kala dhixi jiray ceergaabo iyo burco arrintaas waa arrin aad reer ceergaabo ku mudan oo xasuus safar sharafka haweenka dhalinyarada xuqaasha inta arimo sharafeedka ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa wasiir hore aadan cilmi dhoollayare oo sabab u ahaa harimo sharafeedkan uu ku maamuusayo gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani xirsi aad baan ugu mahadnaqayaa harimo sharafeedkan ka deegaan ahaan waa kii labaad ee aan u samayno deegaankayga mar labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hablaha sharafta leh ee xisbiga dadaalka iyo tacabkaba mar kastaba geliya iyagana waan mahadnaqayaa mar saddexaad dhalinyarada xisbiga iyagana waan mahadnaqayaa hadday labada jeer ee hore isla deegaanka ahayd gudoomiyaha maamuuskiisa iyo casuumadiisu way sii soconaysaa ka deegaan ahaan ka dhalinyar ahaanna halka waxaanu ka ballan qaadaynaa tataa xigta annagu haddaanu nahay dhalinyaradii deegaanka inaanu ku maamusno gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada ee shirweynihii maalintii dhoweyd lagu doortay xisbiga ayaanu halkan ka ballan qaadaynaa una sheegaynaa insha allah gudoomiye xirsi waa gudoomiyaha nin badan soo wada shaqaynay
waxaan ku bartay daacadnimaan ku bartay gudoomiyaha waxaan ku bartay ballan baan ku bartay waxaan ku bartay dadaal baan ku bartay wax allaala waxaad isla qaadataan waa qof aad ugu imanaysa maanta waxa sharaf ah inuu xisbigii wadani uu hogaamiyo gudoomiyo xirsi dhanka kalena aanu dadka dhalinyarada u taageeraan hayo Soomaaliland qabyaaladda ugu weyn ee ka jirta waa qabyaaladda dhalinyarada oo ah da'da konton jirku 40 jirka hoos buu riixaa 40 jirkuna 30 jirka hoos buu riixaa maanta inuu nin dhalinyaro oo dhalinyarada ku dhow oo la saaxiiba oo la aragtiya oo la afkaari uu hogaamiyo xisbiga wadani sharaf bay u tahay waana tan ku taageerayno gudoomiyaha ku taageerayno hiiliyahooda waan la garab taaganahay xisbiga nimankayga dhalinyarada oo halkaa waxa iga muuqda migiste in mawlid musaddacar oo garabkayga taagan hablaha sharafta badan xisbiga waan la soo bilaabanay maalinta la soo bilaabina anagoon cidna eegin odaynaan eegin waxna aanaan eegin falilaahi alxamdu maanta haddii odayaasheedii noogu yimaadeenna sharaf gaara iyaduna noo tahayo dee garab iyo hiil weyn ayaanu aragnaa saanu shalay cabdiraxmaan u dhisinniba insha allah mustaqbalkana gudoomiye xirsi ku dhisaynaa insha allah madasha kalena waa inoo ballan waxaan kaga baxayaa assalaamu calaykum hadin loo daayo marsa hadii la soo kiciyo waan ku qasbanahay dhammaan waad salaamantihiin hoggaanka xisbiga gudoomiyaha xisbiga xoghayaasha hableena sharafta badan iyo odayaasheen iyo dhalinyarada iyo uqaashada aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa sida halkan laga sheegay wasiir hore aadan cilmi dholayare iyo odayaasha la soo qabanqaabiyeyba runtii hadima sharafeedkan qiimaha iyo qaayaha ay fidiyeen ayagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaashana waan mahadnaqayaa taa dambe ee lagu ballan qaaday ee aftax ballan qaaday iyo dhalinyaradaasna waan u mahadnaqayaa dhammaantiin waa mahadsantiin deegaan ahaan markaan runtii ka hadalno waxaan u malaynayaa waxaynu ugu wacan hadima sharafeedadan badan aynu samaynayno hoggaanka xisbiga iyo gudoomiyahaba abaalkii halkan uu ka sheegay injineer Yusuf Geyd ee uu gudoomiyuhu ku lahaa deegaankan iyo beeshan waqtigii uu hoggaanka u ahaa dowladda Axmed Silaayi waqtiga runtii aan waxaan ahayn ardaydii ku jirtay waxbarashada waanu maqli jirnay hadal hayntii runtii halkaasi naga soo gaadhayna waa maanta keentay taageerada iyo xuduudda halkan lagu muujinayo intaa ka bacdi waqtigu runtii waa gaaban yahay waxaan aad iyo aad runtii aan u ayeedayaa hadalkii wasiirka ee ahaa inaynu ku jirno waqti adag oo abaara oo ummadu tabaalaysan tahay ninkii miyitagay baa garanaya guud ahaan waxaan markaa runtii ku boorinayaa dadka inay taana u dhag yeeshaan sidoo kalena dumarkeena iyo odayaasheena iyo aqoon-yahankeena iyo runtii waxgaradkeenuba ay u fiitaan salaamu calaykum waxaa kaloo yara aaraaranaya halkan markay ragga intaa leegi fadhiyaan dumarna fadhiyaan ma aha in qof qura ama haweeney qura in mikrofoonka la siiyo 3 iyo 4 iyo 5 inay hadasho way u qalmaan marka ragga cadaaladda inay ilaalisaan way qurux badan halkan hadalku waxa weeyaan waqtigina uu yar yahay casar bay nagu soo socda waxaan halkan ka salaamayaa hoggaanka xisbiga iyo waxa weeyaan xirsi xaaji cali xasan oo noqday gudoomiyaha xisbiga wadani iyo dhamaan waxa weeyaan hoggaanka xisbiga la doortay waan u duceynayaa inuu ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay u fududeeyo hawlaha loo idmaday sida la sheegay kulay qolooyin iiga dhuun daloolaa jira oo soo sheegay gudoomiyaha musharaxeena waxaan u rajeynayaa bismillaahi tacaala in ilaahay inoo fududeeyo iyadana inuu kursiga ku guuleysano noqonana xisbi cadaalad ummadda ku hogaamiya waxa weeyaan waxyaabo badan ka taga aad iyo aad baan idin salaamayaa waan u mahadsan yahay mar kale aan u mahadnaqayaa aadan waxaan rajeynayaa deegaankayga inay ka soo jeedi doonaan rag badan oo sidoo kale ku riirido casuumadaha ugu celceliya xirsi insha Allah tacaala waxa kale oo ku hambalyeynaya gudoomiyaha cusub xirsi xaaji cali xasan oo ammaantiisa aad halkan looga sheegay asagana waxaan leeyahay hambalyo waxaan kaloo hambalyeenayaa
ku-xigeenada iyo dhammaan xusbiga maalintii dhaweyto doorashada in allaala intii ku soo baxday manaasiibtiisa oo aan leeyahay allah idinku guuleeyo waxa kaloon halkan ka hambalyeynayaa abtigay xamarje oo aan leeyahay xamarje waa abtigay hambalyaan ku leeyahay mar koowaad iyo mar labaadba hambalyada waxaad gaadhsiisaa nimankii sacad muuse odhan jiray inankaynu dhallay waana looga taaglaayey u sheeg inaynu heshiinay hambalyaan ku leeyahay adigana waxa kaloo halkan ka soo jeedinayaa runtii oon u hambalyeynayaa qolada habar jeclo ee xisbiga imaka ku soo biirtay hambalyaan leeyahay iyagana meel kastoo joogaan dadka la duubayo iyo inta laga hadlinayana waxaan leeyahay biyadhaankii baa taagane biyadhaanka ha loo gurmado kaa ku socotaana waxaan muu bixin jirine waar waxaanu leenahay waar si wanaagsan waanba bixi dadka soo kaxaysatay ee bilanoolka halkoodii ku celiyo dhaanka ha kaxeeyaan leeyahay isagana kaana waxaan u sheegayaa ninka meesha jooga ee la yaqaano kaana intaasaan farayaa waxaan ku soo gabagabaynayaa xafladda aad iyo aad baad mahadsantihiin aadan dhool yare oo dawlad yaqaana oo garanaya xafladdu siday tahay iyo sida dawladnimada loo soo dhaweeyana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantahay adiguna waanay soo dhowdahay istiyaar garayo suulka sii badi wasalaamu calaykum waraxmatullahi dhammaan beesha nacsuntay oo horkacayo boqorku iyo wasiir hore dhool yare iyo haweenkaba iyo odayaasha guurtida iyo xisbiga gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada iyo xogeeyayaasha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan dabadeed kulli waa mahadnaq waxaanu ka mahadnaqaynaa qadadaa noo samaysteen oo tii labaada waa ka mahadnaqaynaa si fiican baan uga mahadnaqaynaa meeshaad ka soo saarteen wax ruuna la soo geliyaan leenahay dhoola yare intaas taa weeye ta kaleeto xirsi oo laga sheekeeyey hawshu ka qabtay dalka dee rag badan baa jiray oo ninka wax qabto waa laga sheekaynayaa laakiin ninkaan waxba qaban laga sheekayn maayo annagu waxaanu ku seexannaa waddada ceergaabo oo uu noo sameeyey oo dagaal badan ka galay oo dhowr jeer uu ka hadla oran jiray qolyo ka soo horjeeday war bal dadka aan doonayno idinku dhinacan uga baydha dhinac marinina cabdulqaadir jirdaa habeen soo qaatay wuxuu yidhi wallaahi ismaqiiqa uu isku qaaday xirsi waddada ceergaabo waa yaabanaa laakiin ismaqiiq ka faa'iido badan ilaahay ma tusin insha allah waxaan rajaynaynaa wax badan inuu waddanka ka qabto waan ugu mahadnaqaynaa hawsha dadku ugu mahadnaqayo allaha garansiiyo xisbigu kulli wax fiican oo sunno wanaagsan buu jeexay cirana waxaan rajaynaynaa insha allah waqtigan dhow insha allah inaynu soo saarno xirsina uu ka dambeeyo insha allah muusena waxaan leenahay muuse madaxweyne sidii aad ugu dhiiratay tii hore ee golayaasha tanna ugu dhiiro doorashada qabo baqdin laguguma sheegi jirin saasaanu isna leenahay sharafta leh halka kan ku casumay madaxda xisbiga baan mahad celinayaa rag iyo dumarba marka labaadna waxaan iyadana salaamayaa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada iyo dhammaan xisbiga howlwadeennada xisbiga iyo saxaafadda iyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan waa madal dee runtii casuumadeed oo hadalkeedu ma badna waxsaan leeyahay waxa weeye isbeddel baa looga baahan yahay in dalka laga sameeyo marka hore waxaan idiin sheegayaa horta marka hore isbeddelka weyn ee uu ku dhiiraday hoggaanka xisbiga iyo musharaxu waxaan leeyahay aad iyo aad bay waxay Soomaaliland uga tahay wax weyn oo hadda aan curad ahayn uguba wax weynna waa soo kordhin doontaa waa arki doontaan haddii Ilaahay yiraahdo xisbiga waxa xirsi loogu wareejiyay waxa weeye in Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu helo madaxweyne ka noqdo dalka mustaqbalka
in xisbigu uu helo awood ballaaran iyo taageerayaal ballaaran iyo cod ballaaran oo guul gaadhsiin kara way iman doontaa haddii ilaahay yidhaahdo waan idinku bishaaraynayna nidaam ilaahay isbeddelka xisbigu sameeyey waxaa la yidhi oday reer burcaahoo doobile ahaan jiray baa berigii kacaankii baa waxaa laga dhigay sidii uu joogay baa subax waxaa la yidhi waxaa tahay garsoore maxkamadda ah maxkamadda gobolkaad garsoore ka tahay abidkiina doobile ah waxna ma soo baran odaygu dar buu dhaqi jiray oo dee maxkamad wax kama yaqaana meeshii buu tegayoo waxa la garsooraa tahay odaygoo meeshii jooga oo aan shaqo bilaabin ayaa maalmihii aan sidaa uga fogayna islaamihii waaweynaaye caawilayaasha ee takhtarka joogi jiray ayaa iyadiina la yidhi labadaba waa la deercasiyo waxa la adiguna waxaad noqonaysaa garsoore maxkamadeed isagoo tiisi la yaabsan baa islaantii oo garanayna maxkamaddii loogu keeno wuxuu yidhi hebley maxaa lagu soo magacaabay waxay tahay garsoore haa wuu aamusay subaxdii dambe soo shaqo tageen islaantii baa odaygii la wasgaranayaana waxay ku tiri hebelow xalay boorame dhulgariir baa ka dhacay xalayto dhulgariir baa boorame ka dhacay wuxuu yidhi heblahay sidii aniga iyo adiga laynoogu magacaabay garsoorayaasha maxkamadda sare dhulkuma fadhiisan buu yidhi waa gariir anu waxaan idiin sheegayaa dee horta ninkii saaxiibka ee muuse biixi sidii xirsi guddoomiyaha loogu magacaabay meeshii gariir baa ka baxaya yaa baqdinta noocaasana waxaan leeyahay way soo korodhay wax dee inuu xirsi sababay in wax kale weheliyaan garan maayeen waxaan rajaynaynaa inay guul noqoto odaygana waxaan leenahay baqdinta laguma aqoone doorasho qabo dunidana abaaraa ka jira duruufana waa ka jiraan يعني maaragtay hawlo ka waaweyn baa laynooga baahan yahay iminka in dad loo yeedhiyeero oo la yidhaahdo maaragtay madaxtooyada laydinka yeedhaya intaasaan anigu ku soo gabagabayn lahaa horta marti sharafta isugu timid ee casuumadan hoggaanka xisbiga wadani hogaamiyaha gudoomiyaha noqday iyo gudoomiye ku-xigeyaasha marti sharafta adeero aadan axmed cilmi oo martiqaad ka lahaa iyo haweenweynaha wadani dhammaan xisbiga wadan meel kasta joogo waxaan leeyahay waa salaamantiin idinka madasha wada joognana waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat intaa ka bacdi wax hadalka sii badin maayo baan leeyahay wadani horta waa wadani insha Allah taala odaygii baa iga qosliyay wuxuu yiri intii xirsi la doortay dhulku waa gariiraye imaka xisbiga kulmiye bariba maahmaaha baan waxaan ka dhageystay aabo wuxuu yiri saddex nin oo midna indhaleeyay midna lagaleeyay midna lugaleeyay bay soo raacay waa saddexda imaka xisbiga kulmiye taagan wuxuu yiri kii indhalaaba yiri gaadhi baa soo muuqda kii dagaalaaba yiri waan maqlaya kii cagaalaana wuxuu inaga carrasiye imaka xisbiga kulmiye ka dagaalana waxbuu maqlaa ka indhalana waxbuu arkaa ka cagaalana wuu cararaa marka waxa leeyahay ila ma wuxuu ciridkaan arkay ilka kama soo jeedaane ila ma ha horta doorasho in la qabanay kol hadii xirsina gudoomiye loo laga dhigay xamar jira ku xigay laga dhigay muuse bixii lama aynu ka dhigayo in doorasho qabanayo sawaxan oran lahaa in abaara soo jira hadeen xisbiga wadaninahay qof kastaba meeshu jooga $1 waxbay tahay marka la isku geeyo lacagta $1 waxbay noqotaa ka xisbiga ahaan aynu kacno abaaraheena aynu dadkeena booyada u geeyno adeerada Axmed Cilmi waxa leeyahay adigu wasiir hore iyo mid dambe soo socdaba waad leedahay beeshana waad ku weyn tahay xirsina beesha meel baad kaga taala hadii insha Allah Cabdiraxmaan la doorto adigana waanu ku dhisaynaa inta kugu xigtana waanu dhisaynaa xamartiyo leeyahay in hadii balay hinde waabeeye wixii wadani ah biid billahi taala ilaahay isku kaysimo guushana hayna raaciyo anigu waxaan ahay ahna maqli jirtay hooyaday baa wadaniyo fadhida walaalahayba abtigayba odaygayga jooga marka waxaan isleeyahay aniga mala wadan idinka ma nasiibadna dadkii aasaasay iyadoo meesha waxa la oran jiray malcaamada waxa laga bilaabi jiray taasada barigaan yaryarayn lagu dhigi jiray kuraasada mar dambe yahay anagu wadani waxaanu nimaanaga kuraasada taasada ku fadfadhina maanta waa ilaahay hadii kuraasi waaweyn loo sameeyay aadna waridii salaamay guushana waan rajaynaya biid billahi taala beeshayadana waxa leeyahay 100 aadan oo kala weyn joogay baasha jeebka gacanta galiyo guusha xirsaynu raacinay casuumadaha badiyo gobonimada hayna raacday wassalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxay u xigsiiseen laba qof oo aftahan maaho
جامع هذا علي موسى هذا موسى على حرور وحي بدي لا وين كان صوت وقري waxaan ma hadaqayaa wasiir هذا النول يره وعسومتني inoo sameeyay aad iyo aad baad u mahadsantahay hadiya jeer munaasabadahan oo kale weyn geli kara gobonnimada hanan kara garashada iskaga wada mid garashada ka wada mida quruxdana ka wada goba geesteena loo yagay kale ma jooga buuxda argaantii dawaabi boqolaalka laga bixin jiray sida ugu ogidin horta marka aad iyo aad u mahadsantiin cidda mid baa idhi bari la casuumayo markaasuu yidhi cidda dambe na casuumi doontana aad baan ugu sii mahadnaqaynaa marka cidda dambe ku xigi doontana aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii sidaa laga dhawaajiyey intii uu xisbiga wadani uu qabsaday koongareeskiisa waxaad moodaa inay fallaadh ku noqotay xisbiga talada haya ee kulmiye sidoo uu lahaa doorashaanu qabanaynaa ee uu sidaa ugu socday ayuunbaa koongareeskii qabsanay toloma waa la burburibay islahaayeen ma wax kalaa ka soo bixi bay islahaayeen iminka nimankii miyay miyirboor asqoobeetii ma maqli jirta iminka waa arbushayi waxaa jira iminka nima wasiiraa oo dad bay dadkaa biyodhaamisku haystee laga sheekeynaya xilligan ayay dad ururinayaan oo ay maaragtay ay leeyihin waxaanu geynaynaa madaxtooyada oo ururo la furay waxbay ka sheekeynayaan ururada sida lagu furay sharciyadiisa iyo waxaas waa wax le wado dariiq la yaqaan oo sharci oo baarlamaan iyo xukuumad iyo golayaal qaran ka dhaxaysa marka waxaan oran lahayn war taa waxba ku habsaaminay odayaal waxba ma furaane hadday dee imika marxalad adag tahay oo aad soo lugoyseen abaladeeru sahayd oo ka bixiyo dadka maartay saani walba bixiya wasiirada qaar baa sidaa iskaga caan hadiya jeero waxa la yidhahaa afrikaanku wuxuu caan ku yahay marka kursiga loogu soo dhigto hadda markay ka soo dhowday ayuunbuu problem doondoonaa hortalo xaggaynu ka baxnaa waxa la yidhahaa African Futurist Syndrome iyo waxba la yidhahaa markaasuu doon abuuraa spoilers qaar doorashooyinka khariba qaar maxay haytoy wax kala sameeya nidaam dambe sameeya waa iska malaa dee baahida baan isiri hadraawi baan gabayo lahaa waxay ku jirtay inta maanku gaajaysan yahay guuli waa weli kuwa waxaa wada waxaan leenahay waa arsaaqadu waa la iska helaaya waxba hadoon doonina dalkani wuxuu dal ku noqonaya uma baahna imka khilaaf dastuuriya dalkani uma baahna wuxuu u baahan yahay hanaanka aynu u soconno doorashada annagaa ku yara raagnay qoladeeda golaha wakiilada isbedel baa dhacay imika wanaagsan runtii isbedelkaasi wuxuu geliyay dadka rajo waayo waxaad arkaysaa wadamada doorashooyinku inay doorashooyinku nooleeyaan dadka rajadooda iyo hamigooda iyo waanan bogaadinayaa saaxiibkay barkhad iyo halkan oo iyagu maray area berigii hore aan dadku inta badan ka garaaci jirin oo dadka maskaxahooda la hadlay marka waxaan oran lahaa war maskaxaha dhalinyarada isaga cabdikariin axmed moogebe sida ay u mareen kuwa wasiiradiinaha maraane qarnigii 18 ma joogtay odayaal ururiyo meel la geeyo qiimo badan ma yeelatee dalka sidii hagelinina khilaaf dastuuri ah aynu ku soo noqono dariiqii maxay ahayd sharciga aynu ku kala baxaynay ha lagu wado waxaan arkay dad golaha baarlamaanka dee in badan baan golaha wakiilada ahayn xeerarka dalka sida ugu maqaalaha madaxweynaha xeerkan uu soo celiyay dee markaaba xeerka 14 ee ururada furista uu soo celiyay isaga xaq u lahaa markii hadduu ilaha furadee oo saxiixisay ku xidhnay sida ugu maqaalaana muddadii loogu talagalay koo ilaa ka cashahayd uu soo celiyay halkaa wax kale oo laga baarbaaraa ma jirtee golaha wakiilada ayaa xaq u leh hadday ku celinayaan xildhibaan ay ku celinayaan maxay tahay madaxweynaha oo ay u helayaan 2/3 majority ama 55 oo soo jeedintii madaxweynaha ay maartay ka hor imanayaan hadday aqbalayaanna dee dood oo furan intaa wixii aan ahayn laga dhex galaaba meesha ma taalo marka taana taas ma laha hablaha sharafka leh ee odayntii aduunyaha iyaga si gaar ah u salaamayaa waxaan si gaar ah kunaga salaamayaa inanka inantu dhashay ee salaadiinta ka dhex yidhi waa boqol raabi isagana aad baan u salaamayaa hoggaanka xisbiga iyo xildhibaanada aad baan u salaamayaa anigu runtii
waxaan ahay dhuun iyo af baan ahay waxaan aad iyo aad u aqaanaa ninka la yidhaahdo dalka hogaamine Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloona aad u aqaanaa madaxweynaha ku-xiga Cabdiraxmaan labadaba la saaxiibaan mid hore mid dambaba ah intaa waxaan idin raacinayaa horta labada nin kala geysane waxa geysan ninka la yidhaha Cabdiraxmaan oo lixlaha siyaasadda aynu oran karno haddaad maqasheen lixlaha xabadda geesku ahaa الله ونحنستي سياستنا وعلى أبو الرسول يمد وجسني موجي مصدر عبد الرحمن عرو وعلى ذكر مصبي عيسى ورئيس سياسة عبد الرحمن دهان وكويهاي runtii haddana maanta gariirka uu sheegay jaamacadey ayaa ninkii Muuse ku dhacay bisha imika aynu ku jirnay salaadiin madaxweynaha ku yeedhiyo inta fartaagtay diiday waa markii ugu horeysay aynu nolosheenna aragnayba way dhacday way diideen intaasoo dhanba ninka lagu dhaca Cabdiraxmaan hal odayna lamu tashan madax dhaqameed lamu tashan gudidii xisbigu isugu yeedhay xisbigii geediga suuqaleeyay dhowr ku raacday waxaan oran lahaa saaxiibkay Muuse fulinimo badan ee ka muuqato dhiiro odayaashan iska daa kuwii horaad shal duraad ahaa maanta qaar kale u yeedhay dalka abaar baa ka jirta ganacsado maanta lagu eersadaayo kale ma jira dalka adaa ka ganacsada ah oo ugu taajirsan waxaan ku oran lahaa ummadda abaaraha haya waxaan ku oran lahaa mudane ganacsada madaxweyne dalka abaar baa ka jirta martida kula joogta wixii aad tari karayso tar baan ku oran lahaa kanada lugooyada arrinta dimuqraadiyadda dib ugu soo laabo arrinta dimuqraadiyadda dib ugu soo laabo kaahin siisaya aduu ku soo noqotaya ninkii lagu oran jiray sulub siisaya bal sidoo Cabdiraxmaan Badheedho uga yeeshay mudane madaxweyne Badheedho uga yeelo dadka warwareega iyo madax dhaqameedka faraha kala bax waxaan idin sheegayaa qof kastoo Ilaahay abuuray waa laba amba qofku wuxuu jeclaadaa kursiga amba wuxuu jeclaadaa maalka sida imika inooga muuqata madaxweynayaasha jeclaada kursigu waa madaxweynayaal tusaale inaga soo qaadan karna Maxamed Ibraahim Cigaal oo kale madaxweyne jeclaada maalka oo waxay shacabku u baahnaadaan waa sida maanta madaxweynaha oo kale cimrigiisuna waa wax caam oo la wada yaqaanayo uu soo yaraadaa uu soo cimri gaalnaadaa maanta maxkamadda ka qayb galoonin baa waxa uu isla xisbiga kamid ah diyaaradihii Dubai faleedii waxa loo xayiray oo loo haystaa diyaarad caylada Muuse wakiil ka tahay imika leeyahay Ethiopia Airways baa ayaa loo xayiray dhammaan diyaaradii kale imika ku celinaya dhammaan waxa looga goleeyay ganacsi iyo kursi jacayl isma qabanayso wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh sallallahu ala sayyidina Muhammad dhammaan odayaasha akhyaartii madaxda kala duwan halka joogtay haweenka iyo dhalinyarada assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh salaan kadibna waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aadan dhoolayare iyo intii kale casuumadan inoo samaysay qada sharaftan inoo samaysay aad bay u mahadsan yihiin sida noo sharafteen noo karaamaysan Allah idin karaameeyo inta kale halka isugu timi xisbiga ama xubnaha kala duwan dhamaantoodna waa salaamaya waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala hayna gaarsiyo hayna ugu guuleeyo guusha aynu ugu celeynayno aynu qarankeena iyo dalkeena la doonayno taasoo ku imanaysa isbedel dimuqraadiya oo hanaankanu uu jidka u qaaday inuu mar walba doorasho iyo warqad lagu kala helo kursiga iyo madaxtinimada lagu doono lagu kala helo taasaynu inaguna insha Allah ta'ala raacayna taasaynu ku rajo weynahay taasay muuqataa qolada inaga soo horjeeday ee durbaba ay indhaha keerkeerayaan waxaasaynu leenahay insha Allah ta'ala doorashaynu socnaayo doorashadii aan diyaarino madaxweynaha wax laga sugayo la yaala komishinka codsigiis uu soo diray sidii warbixinta ay nagu siiyeen ahayd inay qorshihii soo gudbiyeen doorasho iyo sidoo kale miisaaniyadii doorasho labadaba inay soo gudbiyeen miisaaniyadii doorashadu lagu qaban lahaana way soo gudbiyeen madaxweynaha la taala
qorshihii doorashada lagu qaban lahaa iyo timekii ama time framekiina madaxweynuhu la yaala wixii ay ku habsaantaa hadday ku habsaanto meeshiisa isagu bay ku habsaantaa inagu se waxaan leenahay reer wadani iyo Soomaaliland oo dhan doorasho aynu isu diyaarino u diyaar garowno qorshaheedii iyo hanaankeedii la nimaadno waxa weeye ninkii wax kale uu gacan taagaya isaga u taalaaye doorasho inoo ballama midka labaad ee jira ee doorashada ka soo horeeya waa abaarta taagan iyo gurmadkeeda reer Soomaaliland oo dhan wax jooga qurbaha iyo wax dalka jooga wadan iyo kulmiye iyo midaan xisbi ahayn ku doonaba ha ahaadee waxay inoo balanayn dadka loo gurmado laga qayb qaato abaaraha iminka bilowga ilaahayna waxaynu ka baryaynaa isaga gacan weyn inuu inaga soo furto oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadkeena roob u shubo oo dhibta abaarta inaga badbaadiyo dhammaanteedna insha Allah ta'ala guul baynu ilaahay ka rajaynaynaa